wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya degmada Boocame ee gobolka Sool ayaa waxay si rasmi ah u sheegayaan isla markaana u tibaaxayaan in ciidamada ugu tiro badan abid ay ka tirsan maleeshiyaadka maamulka SLM ee Somaliland ay gaareen degmada Boocame ee gobolka Sool kadib markii safar gaaban ku tagay maleeshiyaadka SLM ee Somaliland gudoomiyaha ugu magacaaban gobolka Sool ee Somaliland ciidamada ugu tiro badan oo ka tirsan maamulka SLM ayaa halkaas ka wada qalaasay dhibaato aad xoogan ay ku hayaan shacabka ku dhaqan degmada Boocame ee gobolka Sool xogii ugu dambeeyay naga soo jiidaha hore dagaalka isku horfadhiyaan ciidamada Puntland iyo sidoo kale ciidanka maleeshiyaadka maamulka SLM ee Somaliland ayaa si rasmi ah waxay u tibaaxayaan in xaaladdu ay hayn mid fiican oo laga cabsi qabo in dagaal halkaas ku dhaxmaro labada ciidamada dawladda Puntland iyo sidoo kale ciidamada ka tirsan maleeshiyaadka maamulka SLM ee Somaliland halkaas maanta gaaray gudoomiyaha ugu magacaaban gobolka Sool ee Somaliland wararkii ugu dambeeyay ayaa si rasmi ah waxay u tibaaxayaan isla markaana ay sheegayaan in ciidamada fadhigoodu ahaa gudaheedka magaalada Boocame isla markaana amaankooda hore ugu hayay ee ka tirsan ciidanka Puntland ay halkaas iyaguna gaareen saaka waxa laga cabsi qabaa in guji kala ay yeelato xaaladaasi isla markaana shacabka iyo xilliga dhagta u taagay dagaal halkaas ka dhaco iyaguna shacabka xilliga feejignaan xoogan muujinaya degmada Boocame ee gobolka Sool waxa hore gacanta ugu hayay ciidamada ka tirsan Puntland isla markaana halkaas ku sugnaa waxaana haatan laga cabsi qabaa in dagaal xoogan halkaas ka dhaco maadaama halkaas uu gaaray gudoomiyaha barasabka ee maamulka SLM ee Somaliland lagu magacaaban gobolka Sool wararka rasmiga halkan naga soo gaaraya degmada Boocame ee gobolka Sool waxa ay sheegayaan in la arkay gaadiidka dagaalka gaashaaman ay leeyihiin maamulka SLM ee Somaliland halkaas ku soo qulqulaya isla markaana gaaraya jiidaha hore ee degmada Boocame ee gobolka Sool maleeshiyaadka maamulka SLM ciidamo fara badan oo tabacsanaya saaka gaaralkaasi ayagoo oo halka ka sameeyay ciidamo fara badan ciidamadan ayaa la sheegayaa in ay qalaasay dhibaato halkaasi ka wadaan maadaama laga cabsi qabo in dagaal xoogan halkaas ku dhaxmaro ciidamada Puntland ee ku sugan degmada Boocame ee gobolka Sool degmada Boocame ee gobolka Sool ayaa bararka qaarkood waxa weeraray dagaal ku dhaxmara ciidamada ka tirsan Somaliland iyo sidoo kale ciidamada ka tirsan maamulka Puntland xogihii ugu dambeeyay wararka naga soo gaaraya caawadan fiidkan waxa ay sheegayaan inay soo ruqaansadeen cutubyo ciidan oo ka tirsan ciidanka dawladda Puntland isla markaana halkaas hore ugu sugnaa in halkaas iyaguna ay gaareen maadaama ay halkaas soo gaareen maleeshiyaadka maamulka SLM ee Somaliland ciidamada tabacsan oo hogaaminayo barasabka SLM ugu magacaaban gobolka Sool ee Somaliland wararka intaas waxa ay si rasmi ah ugu tibaaxayaan in ilaa haatan aan xog rasmi ah laga heli karin ciidamada lagu sii daaburayo gobolka Sool iyadoo ay hore halkaasi gacan ku haynta ciidamada iyo sidoo kale gacan ku haynta amniga guud ee degmada Boocame gobolka Sool ay gacanta ay ku hayeen ciidamada Puntland hore ayaa dagaalo ugu dhaxmaray laba maleeshiyaad beeleed ka tirsan halkaasi oo ku dagaalamay degmada Boocame deegaana ka tirsan waxaana haatan halka ku sugan ciidamo fara badan oo ka tirsan maleeshiyaad beeleeda ka tirsan iyadoo halkaasi la geeyay ciidamo fara badan oo dhexaad ah oo ka tirsan ciidamada Puntland wararka naga soo gaaraya caawa waxa si rasmi ah geesta kale u sheegayaan in aysan hadda dhaqaaqyo xoogan oo abidkii ugu weynaa ay ka jiraan degmada Boocame